dalalka caalamka waxay ku kala duwan yihiin baaxadda iyo qaabka ay qariiradoodu u dhigan tahay. Wadamada qaar ayaa aad u baaxad weyn, qaar ayaa leh qariirado cajiib ah, halka qayb kale qaabka qariiradahoodu yihiin qaab qeexan oo la wada garanayo. Ereyga Panhandle juqraafi ahaan waa dhul dhuuban oo ku yaal dal, kaasoo ka baxsan dalka intiisa kale, gudahana ugu jira dal kale. Halkani waxaa idinku soo gudbin doonaa 5 ka mid ah xuduudaha noocan oo kale u samaysan, la yaabkana leh. Intii aanan u gudagelin mowduuca maanta, haddii aad ku cusub tahay channelka Aqoon Guud, fadlan subscribe saar, sidoo kale guji oo furo gambaleelka si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya muuqaalada xiga. aanu ku bilowno dalka Talyaaniga, gobolka Trieste. Gobolkan ayaa waxay baaxadiisu tahay 212.5 kilomitir isku wareeg, waxa uu leeyahay dherer xeebeed oo dhan 48 kilomitir. Waxa uu dhacaa gobolkani xuduudda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Slovenia. Sidaad arkaysaan qariiradan, Trieste waa dhul yar oo sidii adinki oo kale ah, oo ka baxsan dhulweynaha Talyaaniga intiisa kale. Si aan u ogaano qaabka ay Trieste ku samaysantay, aanu dib ugu laabano taariikhda. Si fudud haddii aan u sharaxno, gabi ahaanba dhulkani waxa uu ka tirsanaa boqortooyada Austria-Hungary. Dagaalkii koowaad ee dunida markii uu dhamaaday, Talyaaniga ayaa qabsaday dhulkan. Kadib maamulkii Mussolini ayaa yimaaday. Waqti dheer kadib waxaa dhacay dagaalkii labaad ee dunida. Talyaaniga ayaa ka mid ahaa wadamadii ku khasaaray dagaalkii labaad ee dunida, waxa uuna lumiyay dhulkii uu xoogga ku qabsaday dagaalkii koowaad ee dunida. Trieste waxay noqotay ismaamul magaalo oo madax bannaan, hoos tagtana qaramada midoobay inta u dhaxaysay sanadihii 1947 ilaa 1954. Sanadii 1954, Talyaaniga iyo dalkii la oran jiray Yugoslavia ayaa ku heshiiyey in ay qaybsadaan Trieste. Qaybtii ay Talyaanigu ka heleen heshiiskii qaybsigii Trieste sanadii 1954 ayaa ah qaybtan yar ee dhuuban, waxayna maanta tahay oo ay dhacdaa xuduudda Talyaaniga iyo Slovenia. Slovenia ayaa ka mid ah 6 wadan ee dalkii Yugoslavia la oran jiray uu kala burburay sanadii 1991. Xuduudda labaad ee iyadana la yaab kale, waxaanu aadaynaa halkaasi Hindiya. Xuduudda Hindiya waa caadi marka laga reebo qaybtan. Markii aanu fiirino qariiradan, waxaanu arkaynaa qaybtan oo ka tirsan Hindiya iyo qaybtan kale oo iyadana ah dhulweynaha Hindiya in ay isku xirto dhulkan aad u yar oo loo yaqaano Siliguri Corridor. Si aan u ogaano qaabka ay ku timaaday iyo qaabka ay u samaysantay, dib ayaan ugu yara laabanaynaa taariikhda. Hindiya waxay xorriyadda ka qaadatay gumaystiga Ingiriiska sanadii 1947. Gumaystiga Ingiriiska ayaa Hindiya u qaybiyay 2 qaybood oo ku salaysan hab diin. Qaybta diinta Hinduuga haysata waa Hindiya ee, halka Bakistan ay noqotay qaybta Muslimku maamulaan. Bakistan waagaas waxay ka koobnay 2 qaybood. Bakistanta bari waa dalka maanta loo yaqaan Bangladesh, iyo Bakistanta galbeed dalka maanta loo yaqaan Pakistan. Labada qaybood ee Bakistan waxaa u dhaxeeyay dhul aad u weyn oo qiyaastii ka badan 1 kilomitir oo ka tirsan dalka Hindiya. Albaabka Siliguri waxa uu meelaha qaar ka yar yahay 27 kilomitir ballac ahaan. Gobolka Sikkim ee dalka Hindiya ayaa dhaca waqooyiga albaabka Siliguri, waxa uuna gobolkan kala qaybshaa 2 wadan ee kala ah Nepal iyo Bhutan. Sidoo kale wuxuu ku xiraa 7 gobol ee dhaca dhanka bari ee Hindiya, dhulweynaha Hindiya. 45 milyan oo Hindi ah waxaa ku xiray Hindiya inteeda kale. Dariiqan kaasoo qaybo ka mid ah ballac ahaan ka yar yahay 27 kilomitir. Cajiib. xuduudda saddexaad waxaa in yar u kicitamaynaa dhanka waqooyi dalka Afghanistan. waa Khan Corridor, waa dhul ka tirsan Afghanistan kaasoo dherer ahaan fidsan 350 kilomitir kana baxsan dalka intiisa kale. ballac ahaan waxa u dhaxeeya 13 kilomitir ilaa 65 kilomitir. dhulkan ayaa ka dhigaya in Afghanistan ay xuduud yar la wadaagto China. sidoo kale dhulkan ayaa kala saaraya oo u dhaxeeya dalalka kale ah Tajikistan iyo Pakistan. si aanu wax yar uga ogaano habka uu dhulkani ku samaysmay, aanu saacad dib u celino muddo qarni ah. qarnigii 19aad boqortooyooyinkii Ruushka iyo Ingiriiska waxay ku tartamayeen qabsashada dhulalka. boqortooyadii Ruushka waxay xukumaysay bartamaha qaaradda Aasiya, halka boqortooyadii Ingiriiskuna ka talinaysay Hindiya. labada boqortooyo waxaa soo kala dhexgalay khilaaf ku salaysan qabsashada dhulalka iyo saameynta dhaqamada kala duwan ku yeelanayso gobolka. si loo xaliyo khilaafka, boqortooyooyinkii Ruushka iyo Ingiriiska ayaa ku heshiiyey in Afghanistan noqoto dal madax bannaan oo u dhaxeeya labadooda, balse xuduuddii Afghanistan ee xilligaas ma aysan kala saari karin labadii boqortooyo ee Ruushka iyo Ingiriiska. sidaa daraaddeed waxay
go'aansadeen in dhulka Afghanistan loo fidiyo dhanka bari 350 kiilomitir si ay u kala saarto labada dhul ay ka kala taliyaan labada boqortooyo. qarni kadib wali dhulkii la fidiyay 350 kiilomitir ee Afghanistan waa sidiisii oo haatan wax uu kala saaraa u dhaxeeya wadamada Pakistan iyo Tajikistan. xuduudda afraad ee iyadana la yaab kale waxaan u kicitameynaa qaaradda Afrika. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay dhacdaa bartamaha qaaradda Afrika. markii aad qariiradan si fiican u fiirisid waxaa arkaysaa in Congo leedahay laba gacan oo ka baxsan dhulweynaha Congo. Congo waxaa gumaystay Belgium. gumaystay Belgium ayaa sameeyay qaybtan si ay u helaan meel ay doomuhu iyo maraakiibta ay leeyihiin ugu soo xirtaan. qaybta kale ee midig waxay 200 kiilomitir gudaha ugu jirtaa dalka Zambia. balla ahaanna waxay u dhaxaysaa 70 ilaa 100 kiilomitir. qaybtan iyadana si aan wax uga ogaano habka ay ku samaysantay waa inaan mar kale taariikhdu dib ugu laabano. Congo waxay ku jirtay gacantii gumaysiga Belgium halka Zambia uu Ingiriisku gumaysanayay. labadii gumaystay Ingiriiska iyo Belgium ayaa ku heshiin waayay xuduudii u dhaxaysay. kadib waxay codsi u direen boqorkii Talyaaniga si uu u soo farageliyo mushkiladan xalna u raadiyo. boqorkii Talyaaniga ayaa qariirad hortooda ku sawiray waxa uuna go'aamiyay in xuduudu sidaa noqoto. labadii gumaystay ee Belgium iyo Ingiriiska ayaa ku qancay dhexdhexaadintii boqorkii Talyaaniga sidaas ayayna qaybtan gacan kaanyeer ku samaysmay. ugu dambeyntii waxaan aadaynaa dalka Namibia. sida aad ka wada arkaysaan qariiradan Namibia ayaa la gacan dheer oo ka baxsan dalka intiisa kale waxaana la yiraahdaa Kebrevi Strip. waxaan loogu magac daray Leo van Kebrevi oo u dhashay Jarmalka waxayna dherer ahaan dhan tahay 450 kiilomitir. intii u dhaxaysay sanadihii 1884 ilaa 1915 Namibia waxay ku jirtay gacantii gumaystay Jarmalka. sanadii 1890 Chancellor-kii Jarmalka ayaa waxa uu magacaabay Namibia Leo van Kebrevi si uu u fidiyo xuduudaha gumaystaha ilaa laga gaaray webiga Zambezi si Jarmalku u saamiyo una ogaado dhaqdhaqaaqa ka socda webiga Zambezi ilaa xeebaha bariga Afrika. heshiis ay gaareen gumaystayaashii Jarmalka iyo Ingiriiska. Jarmalka ayaa ku wareejiyay jasiiradda Zanzibar Ingiriis halka Ingiriiskuna asagana u ogolaaday Jarmalka in uu fidiyo dalka Namibia ilaa uu ka soo gaaray webiga Zambezi. shiritaanka gacankan ama dhabahan Kebrevi waxay ka dhigan tahay in Botswana aysan xuduud la lahayn dalka Zambia marka laga reebo in yar oo ay ka wadaagaan webiga Zambezi halka Namibia ay kaliya u jirto 200 oo mitir inay xuduud la yeelato dalka Zimbabwe. aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan hadduu muuqaalkan ku cajabay like saar lana wadaag asxaabtaada. qodobka ku cajabay qaybta commentiga nagu reeb. na soco qaybta xigteen duu ilaahay.